12 jasiiradood oo caalamka ugu la yaabka badan. Dunida waxaa ku yaal jasiirado cajiib ah oo mid kasta leeyahay muuqaal iyo taariikh gaar ah, bal aan soo qaadano 12 ka mid ah kuwa ugu la yaabka badan. Jasiiradda Ogasawara ee dalka Japan. Jasiiraddan waxaa lagu naanaysaa Galapagos sababtoo ah dhirta iyo xayawaanada laga helin meel kale, iyagoo hoy u ah noocyo dhir ah iyo shimbiro naadir ah oo ka dhigaya kayd dabiici ah oo qiimo u leh meel dalxiis ah oo xiiso leh. Waa meel dabiici ah oo si adag loo ilaaliyo kuna habboon cilmi baarista iyo dalxiiska deegaanka. South Georgia Island, Antarctica ayay ku taallaa jasiiraddan, inkastoo ay qabow daran tahay. Jasiiraddan waxaa ku nool xayawaan badan oo badda ku jira sida kalluunka barafka, cayayaanka badda iyo noocyo kale oo gaar ah. Waa tusaale cajiib ah oo muujinaya sida noloshu ugu dhalan karto meel kasta. Cerbanius Island. Jasiiraddan waxa ay ku taallaa dalka Imaaraadka Carabta, waana jasiirad gacan ku samaysa. Sheekh Zayed bin Al Nahyan ayaa jasiiraddan u beddelay kayd iyo hoy xayawaan oo duurjoog ah sanadkii 1977, waxaana lagu beeray malaayiin geed, halkaasna lagu sii daayay xoolo sida oryx, geriyada iyo dibi duurjoog ah. Waa meel isku daraysa dalxiis iyo ilaalin dabiici ah. Elmalk Island oo ku taalla jasiiradda Palau, waxaa ku taalla harooyin uu ka buuxo kalluunka loo yaqaano jellyfish oo ay ku nool yihiin kumanaan aan dadka qaniinin. Dadku waxa ay ku dabaashaan si ammaan ah, waayo kalluunka jellyfish ma lahan sun mana aha mid qaniina dadka. Waa meel cajiib ah oo kaliya laga heli karo Palau. Jasiiradda xigta waa Socotra oo ka mid ah dalka Yemen. Jasiiraddan waxay u egyihiin meel ka baxsan dhulka, halkaas waxaa ku yaalla geedo aan meel kale laga helin sida geedka dhiigga ee masduulaaga ah, kaasoo soo saara dareeraha casaanka ah oo daawo ahaan loo isticmaalo. Socotra waxay la daalaa dhacaysaa dagaalka Yemen iyo jarista dhirta oo khatar ku ah deegaanka. Jasiiradda xigta waa jasiiradda Komodo oo ku taalla dalka Indonesia. Waa hoyga xayawaanka halista ah ee loo yaqaano Komodo dragon ama mascagaley. Waxaa ku nool nooc aad u waaweyn oo gaaraya ilaa 3 mitir. Sunta uu leeyahay waxa ay dilaa xayawaanka uu ugaarsado. Dalxiisayaashu waxay u safraan jasiiradaha iyagoo ka tegaya Bali ama Flores si ay u arkaan xayawaankan cajiibka ah. Jasiiradda lixaad, Galapagos Island. Jasiiradahani waxay taageeraan noocyada hodanka ku ah ee ku nool adduunka sida qoolleyda, libaaxyada badda iyo xayawaano kale oo ku nool badda, iyadoo ay jirto in isticmaalka aadanaha ee taariikhiga ah si weyn u yareeyay tirada qoolleyda. Dadaallada ilaalinta badda waxay ilaalinaysaa in ka badan 15,000 oo xayawaanka ku nool badda. Jasiiraduhuna waxay weli yihiin meel ugu wanaagsan ee loogu talagalay dadka jecel noocyada kala duwan iyo kuwa jecel dabeecadda dhulka. Ascension Island, Badweynta Atlantic. Markii hore waxay ahayd dhul fool xun oo dhagax ah, balse qarnigii 19aad waxaa lagu beeray geedo kala duwan sida bamboo iyo geedo kale oo kala duwan, taasoo u beddeshay jasiirad cagaaran. Maanta waxaa laga helaa noocyo badan oo xayawaan ah iyo dalxiis fudud sida kalluumaysiga iyo safarrada socdaalka ah ee ay dalxiisayaashu ku yimaadaan. Mona Island oo ku taalla dalka Puerto Rico waa dhul qallalan oo ay ku nool yihiin xayawaan gaar ah sida Mona iguana. Taariikh ahaan waxay ahayd meel ay joogaan burcadbadeed iyo ganacsato, balse hadda waa meel khatar ah oo dadka tahriibayaasha ah mararka qaar lagu daayo si khaldan. Sarti Island oo ku taalla dalka Iceland. Jasiiraddan cusub ayaa ka dhalatay qarax foolkaano ah sanadkii 1963 ilaa 67. Cilmi baarayaasha oo kaliya ayaa la oggol yahay inay tagaan si ay u bartaan sida noloshu uga dhalato dhul cusub. Waana sheeko nool oo ku saabsan abuuraha iyo kobaca deegaanka. Jasiiradda weyn ee Madagascar ee dhacda qaaradda Afrika waa jasiirad si gooni ah uga go'day qaaradda Afrika malaayiin sano ka hor, taasoo sababtay inay yeeshaan xayawaan iyo dhir gaar ah sida geedka loo yaqaano Lemurus iyo noocyo badan oo cayayaan ah. Waana meel muhiim u ah cilmi baarista iyo dalxiiska deegaanka. Jasiiradda ugu dambeysa ee muuqaalkan aan kusoo qaadanayno waa Snake Island oo ku taalla dalka Brazil. Jasiiraddii masaska. Jasiiraddan waxaa lagu yaqaanaa sunta halista ah ee Golden Lygid Viper, mas ka mid ah kuwa ugu sunta badan dunida, waxaana la rumaysan yahay inay halkaas ku go'doonsanaayeen kumanaan sano kadib markii badda kor u kacday. Dowladda Brazil ayaa mamnuucday in cid cilmi baarayaal aan ahayn ay tagto jasiiraddan si looga ilaaliyo dadka iyo xayawaanka labadaba. Jasiiradahan waxa ay muujinayaan kala duwanaanta iyo quruxda dunida,
qaar waa kuwo cusub oo ka dhashay foolkaanayaashii ka dhacay dunida daafaheeda, qaarna waa hooy xayawaan aan meel kale laga helin. Waxayna na xasuusinayaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo fahamka sida noloshu u samaysanto meelo kala duwan oo dunida ka mid ah. Ku soo biir boggeena daawade oo muuqaalkan like saar, siina gudbi.